بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan ka hadlo in yar ama warbixin yar oo ku saabsan barnaamijka ama programka la yiraahdo business management guud ahaan business management waxa weeyaan waxyaabaha lagu dhigto businesska guud ayuu ka mid yahay waxa soo gala business marka la yiraahdo management buu noqon karaa accounting buu noqon karaa marketing buu noqon karaa commerce buu noqon karaa iyo wixii la halmaala marka waxaan doonayaa warbixin yar oo kaaban aan ka bixiyo maadada la yiraahdo business management ama dadka badankooda oo yaqaanaan management Soomaali ahaana ku noqonaya maareynta iyo maamulida barnaamijkan waa barnaamij ardaygu si guud ugu qaadanayo ama ugu baranayo maareynta iyo maamulka ganacsiyada maamulka dawladaha iyo wax kasta oo la halmaala ama la xiriira maamul ama maareyn la maareynayo ilaha organizationka ama ururada ilahaas oo kamid yahay dadka sida qaabka loo maamulayo lacagta sida loo maamulayo warbixinta sida loo maamulayo iyo agabka laftiisa sida loo maamulayo afarta shay ayuu horta guud ahaan ku tacalluqa hadii jeer ujeedooyinka marka qofka uu barto barnaamijkan waxa uu ardaygu helayaa ama uu noqonayaa qof si international ama caalami ah u fikradaha marka ama conceptka istiraatiijiyadeed sameyn kara maareynta maaliyadda sameyn kara wax soo saarka iyo waxa soo dhan maareyn kara ganacsiga maareyn kara wuxuu ka dhismayaa dhinaca luqadda ama luqadaha dhinaca xisaabtu ka dhismayaa waxa kale uu noqonayaa mid isagu laftiisa bilaabi kara ganacsi oo qofka business management dhigta hadii jeer waa qof xagga ganacsiga oo kale inuu isagu bilaabo oo uu wax soo kordhiyo u furan entrepreneurship wax la yiraahdo ayaa ku jira small business wax la yiraahdo ku jira marketingkiisa baa ku jira maareyntiisa baa ku jirta xisaabaadkiisa baa ku jira waxyaabahaas oo dhan marka waxa weeyaan waxyaabaha u sahlayay inuu qofku noqdo qof isagu ganacsi bilaabi kara haddaba ardaygu muxuu noqon karaa muxuu khabiir ku noqon karaa qofku marka uu dhigto management muxuu khabiir ku noqon karaa wuxuu khabiir ku noqon karaa inuu sameyn karo qorshe isla markaana ableeyo wuxuu noqonayaa leader hogaamiye dadka isla markaana control kara hawlaha shirkadaha ama kuwa dawladda oo dhan gaar ahaan waliba kuwa gaarka loo leeyahay dawladdu way soo raaci kartaa inkastoo uu jiro barnaamij u khaas oo la yiraahdo public administration laakiin qofka managementigi wuxuu noqonayaa khabiir ka shaqeyn kara dawladaha iyo kuwan dawliga ahaynba wuxuu noqonayaa khabiir ku xeel dheer dhinacyada suuqgeynta marketing oo kale wuxuu noqonayaa khabiir ku xeel dheer xisaabaadka organizationka wuxuu noqonayaa khabiir ku xeel dheer maamulka shaqaalaha wuxuu noqonayaa khabiir ku meel dheer maamulka alaabta ama property management waxa la yiraahdo dhinaca kale Ingiriis marka la yiraahdo human resource manager buu noqonayaa marketing manager buu noqonayaa operations manager buu noqon karaa finance manager ayuu noqon karaa wuxuu khabiir ku noqonayaa oo kale inuu sameeyo cilmi baaris ama research ku saabsan waliba xaggan businesska xag consumer oo kale adeegyada oo kale production oo kale finance oo kale khabiir racanka wuxuu sameyn karaa daraasada caynkaas oo kale waxa kale oo furan inuu qofkani khabiir wuxuu ku noqon karaa inuu awood u leeyahay dhibaatooyinka lagu xaliyo isla markaana go'aanada saxda ah ku gaadho isagoo isticmaalaya warbixinta ku haboon ee uu ku helay muddada uu qofku yahay maareeyaha ama managerka uu yahay qofkani muxuu ku shaqeyn karaa meesha taala ama mihnadaha u furan oo qofka managerka la leeyahay mihnadaas waxay u baahan tahay qof manager waxa ugu horeeya inuu qofku noqon karo af English ereyadana marka hore English ma ku sheegi doona marka dambana waan sharaxi doona wuxuu noqonayaa corporate investment banker insurance underwriter management consultant operational researcher wuxuu noqon karaa product manager wuxuu noqon karaa risk manager wuxuu noqon karaa human resource officer wuxuu noqon karaa logistics and distribution manager wuxuu noqon karaa executive marketer
marketing executive wuxuu noqon karaa retail manager wuxuu noqon karaa sales executive iyo system analyst waxyaabahaas oo dhan iyo kuwa kale fara badan ayuu noqon karaa marka haddaan yar oo Soomaaliya aan raaciyo corporate investment banker ama waxa la dhahaa investment banker waxa weeyaan dadka bangiyada u shaqeeya ama wixii la xiriira financial u shaqeeya isla markaana u kala iibiyo dadka alaabaha qiimeeya corporate diversification wax la dhaado ayuu u sameeynaya businessyadu u kala iibinaya bangi hadduu iibsanayo uu kala iibinaya shirkada haddii iibsanayso uu kala iibinaya xagii caymiska kale weeyaan kan kalena insurance underwriter uu ka shaqeynaya wixii caymiska ku saabsan wuxuu bixinayaa talo bixin ku saabsan xagga maareynta oo waxaan leenahay management consultant ayuu noqonayaa wuxuu hadii jeer researcher qaabkay wax u socdaan hawluhu si u socdaan oo research gareyn kara product manager buu noqon karaa markay tusaale ahaan xagga suuq geynta kale markay noqoto shirkadu haday leedahay products fara badan ama aga fara badan oo iibiso qaabka loo iibgeynayo qaabka research loo sameeyo qaabka loo develop gareynayo wuxuu u baahan yahay qof manager waxa soo dhan la socda risk manager shirkadaha ay jeer kama maqna hawlahoodan dhayliga ah kama maqna wax la yiraahdo risk ama halista ama khatarta kama maqna soo khataraha lagama suulin karo hawsha maalinlaha laakiin waa la yareyn karaa marka qofka managerka wuxuu noqon karaa qof isagu riskigaas oo kale wax badan ka sameyn kara wuxuu noqon karaa qof cuuda shaqaale maareeya wuxuu noqon karaa qof isku xidha hawlaha shaqada xafiiska iyo kuwa dibadda ama logistic waxaan lahaano wuxuu noqon karaa distribution manager oo shirkadaha waaweyn waxay leeyihiin cid u qaybisa productkooda isku xidha supply chain-ka ama silsilada isku xidha kuwaas oo dhan buu noqon karaa wuxuu noqon karaa executive marketing executive suuqinta cid ugu sareysa shirkadaha ayuu noqon karaa weynari wuxuu noqon karaa shirkadahan iibiya retailka ama wax la yiraahdo tafaariiqda manager buu ka noqon karaa sales executive buu noqon karaa oo qofka iibiya maxaa la shaqaalahan iibka qofka haysta ama ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa ugu muhiimsan system analyst inuu systemska jira ama habka loo shaqeeyo intuu baaro yiraahdo halkaasay wax ka saxsan yihiin halkaasay wax ka qaldan yihiin wixii saxsan la sii kordhiyo wixii qaldan la bedelo ay la yimaadaan marka hab cusub oo hawsha loo qabanayo marka hadii jeer system analyst dadku waxay arkaan inuu computer yahay laakiin ma aha system analyst waa qofka intuu problem meel ka jira intuu daraasadeeyo xalkeedana la yimaado markaas marka la yiraahdo system analyst marka qofka managerka waxa soo dhan buu noqon karaa marka hadii aad doonaysid inaad manager noqoto you can join this program hadda doonaysid inaad wax badan dalka ka bedesho you can join hadda doonaysid inaad go'aanada si rational u qaadato ama si caqliyeed ku dhisan tahay aad u qaadato waad ku soo biiri kartaa programka aad baad u mahadsantihiin